Real Liga dalka Isbaanishka ayaa caawa laga ciyaari doona mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee adduunyada kaas oo ah kulankii Clasico. Caadiyan kulanka wuxuu dhaxmara kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. Waa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee indhaha mucaashiqiinta ay isku qaban doonaan caawa. Ciyaartan waxay soo gali doontaa caawa markay saacadu ku beegan tahay 5 saac oo caawa ah. waxay ka dhici doontaa garoonka Santiago Bernabéu ay ku ciyaarto kooxda cadcadka Los Blancos. Real Madrid iyo Barcelona kulanka ugu horeeyay ka dhacay garoonka Camp Nou waxa lagu kala baxay barbadhac eber. kulankan ayaa noqon doona kulan dagaalka hogaanka ah maadaama kooxda Real Madrid laba dhibcood loogu hogaaminayo horyaalka Liga dalka Isbaanishka. Barcelona ayaana fooq sare saaran midii adkaata ayaa caawa hogaanka sii qaban doonta. haddii Real adkaatana hogaanka ay hal dhibcood ku qaban doonta. Barcelona haddii adkaatana hogaanka ay sii dheeraysan doonta. haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho sidee u arkaa kulanka weyn ee Clasico Real Madrid iyo Barcelona markaad maqashaan El Clasico waxa dib ugu soo dhacaya Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo iyo xidiga kale oo soo maray labada kooxood balse kulanka caawa waxaad ku arki doontaa magacyo dhowr ah ay labada dhinac ay wataan inkastoo idin Hazard oo Real Madrid uu ka maqan yahay kulankani. waa kuwan shacabka reer Muqdisho oo fikirkooda ka dhiibanaya. Cabdishakuur cali salaad waa kulan weyn Real Madrid iyo Barcelona El Clasico Bernabéu ka dhacaya markii xilciyaareedkan kulanka hore Barcelona waa garoonkeeda lagu burbursaday. waxaan rajaynaynaa in ciyaartaana maadaama uu Hazard naga maqan yahay in Real Madrid ay ku badiso 3-0. magacaygu waa Mahad Umar Faarax oo jooga Banaadir gaar ahaan City Cafe. El Clasico waxa badanayso Barcelona waxayna ku badanayeen 2-0. bismillaah magacaygu waa Cabdullaahi Faarax Maxamuud haddii aan saadaal ciyaarta runtii ka dhici doonto Bernabéu runtii geemkii hore markaan ka saadaal qaadano waxay ahayd martii geem aad u wanaagsanay Real ahaan aad ugu fiicnay geemkii hore runtii waxay haysatay Real runtii ciyaartoy ku filan iyo maaragtay form aad u fiican oo maaragtay ay ku wanaagsan tahay markay kula ciyaarayso New Camp. runtii isbedelada Real hadda ka muuqdo waa kuwa runtii aan isleeyahay xagga dhaawacyada ciyaartoyda isbedel aad u badan ku keenay sababtoo tiimka niid ahaan xitaa ma fiicna ciyaarta u dambeysay hadda City Champions League ay ka badinaysay waxaad u malaysaa dulduleelo badan inay maaragtay Real ay leedahay oo xagga maaragtay niyadda ciyaartoyda ah ciyaartoy aad muhiim u ah tiimka runtii ka maqan Barcelona oo soo kabanayso kadib macallinkii maaragtay falfardi oo tiimka iskaga baxay form ahaan waxa isbedelay runtii formkii tiimka ee ciyaar jirta markii hore kubadii hore Barcelona lagu yaqaanay ay soo celisay haddaad ka qayb qaadatid xitaa maaragtay ama dib ugu noqoto geemka ee Napoli la ciyaarayso kale qaabka formka ah ay kubadda inta badan u haysanaysay cadaadiskii hore Barcelona lagu yaqaanay soo celisay runtii marka waxaan qabaa Ramos oo hadrad ku maqan tiimka niidiisu aan fiicnaan ciyaartoy badan oo tiimka ka maqan waxaan qabaa fikir ahaan runtii geemkaas in maaragtay ay ku badin karto kooxda maaragtay Barcelona Bernabéu waliba waxaan qabaa geemkaas wuxuu ku dhamaan doonaa celcelis 2-0. magacaygu waa Cabdirashiid aadan weheliye taageeraha weyn ee Barcelona iyo City waxaan rajaynayaa inaan ka soo badin doono insha Allah 3-0. afar kulan xiriir xaq ku soo badan kulanka shanaad xiriirna wadna rajaynayaa insha Allah. magacaygu waa Cabdirashiid cali cabdi waxaan taageeraa kooxda Barcelona. kulanka El Clasico waa ka badin doonaa kooxda Real waxaan dhimaynaa 5-0 sidii gool ogaa shantii hore haddana tan soo socota waa arkaynaa. kuwaasi waxa ahaayeen daawadayaal qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ka aragti dhiibtay kulanka caawa dhaxmari doona kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. haddaba haddii aad daawanayso muuqaalkan aragtidaada hoos inoogu reeb cidaad guushu rajaynaysid. Cabdirashiid Abu Karnaani Goal TV magaalada Muqdisho.